xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliye odawaa yuusuf raage ayaa la soo warinayaa inay qaateen go'aan inaba aan caadi ahayn kaas oo ay sheegeen in hub iyo gaadiid dagaal ay ugu wareejin doonaan farmaajo guriga uu ka degan yahay magaalada muqdisho tan waxaa la sheegay inuu si weyn uga carooday madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulamo degdeg ah ayaa xilligan waxay u socdaan farmaajo shuute iyo sidoo kale odawaa yuusuf raage guriga uu farmaajo ka degan yahay nawaaxiga aadan cadde ayuuna kulamada ka socdaan waan kuu soo gudbin doonaa xogaha wararkii ugu dambeeyey amuurtaa ku saabsan sidoo kale waxaan kuu soo gudbin doonaa xildhibaan fahiimo quuje iyo ku dhowaada 22 xildhibaan oo ka tirsan maamulka waqooyi bari oo ku soo wajahan muqdisho casuumaad ayayna ka heleen madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyana waan ku soo gudbin doonaa Farmaajo oo markan xiiseynaya maamulka waqooyi bari sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa xiisad culus oo u dhaxaysa beesha Ciise iyo ciidanka Somaliland oo caawa laga soo warinayo banaanka magaalada Saylac ee gobolka Awdal qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo aan mar walba halkan ku daabacno habeen wanaagsan daawade qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya odawaa yuusuf raage ayaa goordhow waxay tageen guriga uu farmaajo ka degan yahay nawaaxiga garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho odawaa iyo sidoo kale shuute waa labada nin oo hadda la aaminsan yahay inay la dhacsan yihiin maamulkii hore ee madaxweyne farmaajo haddana doonaya inay la shaqeeyaan farmaajo haddii uu talada dalka ku guuleysto labada ninba xilka waxaa u dhiibay farmaajo intii ay xilka joogeenna ma uusan qashqashaadin mana uusan soo faragelin haddaba hadda xogta iyo macluumaadka la helayo waxay tilmaamaysaa in shuute iyo odawaa ay qaateen go'aan inaba aan caadi ahayn oo aan la filayn go'aankaasi waa in hubka ay haystaan gaadiidka dagaale oo ay haystaan iyo sidoo kale wax walba oo iyaga gacantooda ugu jira iyaguna ay maamulaan la geeya dhanka farmaajo beesha abgaal ayaa dhowaan la sheegay inay ka carootay in abgaal ciidankooda qayb ka tirsan la geeyo guriga farmaajo oo ilaaliyaan hadda waxaa la soo warinayaa in madaxwaaweynta beesha abgaal oo saraakiisha ay ku jiraan ay la dhacsan yihiin barbilow ilaa dhammaa sida uu farmaajo hadda wax ku wado waxaad ogeedeen tookadii xilka uu hayay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo beesha abgaal waxaa la rumaysan yahay oo xaqiiqo ah in jagooyinka ugu muhiimsan uu dhiibay in jagooyinkooda uusan faragelin in jagooyin kale ugu daray inuu ciidanka dalacsiiyey marka waa wax soo jireen ah oo ka dhaxeeya beesha abgaal iyo farmaajo sida khubaradu aaminsan yihiin haddaba odawaa yuusuf raage isaga waan ognahay oo taliyaha militariga Soomaaliya ciidanka hadda farmaajo ilaaliyana waa ciidan si toos ah uga amar qaata odawaa yuusuf raage xasan cali nuur shuute maadaama uu yahay ninka maxkamadda ciidamada qalabka sida maamula dad badan waxay aaminsan yihiin in uu farmaajo si weyn ula dhacsan yahay hadda ka horna tiro dhowr jeer ayay kulmeen in xilka xataa laga qaado shuute waa la damcay laakiin farmaajo hor istaagay isagoo sheegay in habka uu wax u wado bilow ilaa dhammaad uu ku qanacsan yahay marka laga hadlayo shuute kulamo degdeg ah ayaa waxay ka socdaan guriga uu farmaajo ka degan yahay xayndaabka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxayna wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in xasan cali nuur shuute iyo odawaa yuusuf raage iyo farmaajo kulankooda inta uu socday inta badanba diiradda lagu saaray qodobo waaweyn oo masiirka iyo mustaqbalka taabanaya iyadoo xogaha macluumaadka iyo wararka la helayana ay tilmaamayaan in dhowrkii saace lasoo dhaafay si weyn loo dareemay culeysyada ka imaanaya darafyo kale kuwaasoo la sheegay in ay doonayaan inaan farmaajo xilligan wax gaadiid ah iyo hubtoona lagu wareejin taa beddelkeedana laga shaqeeyo sidii markaasi gacan bir ah loogu dhigi lahaa cid walba oo doonaysa inay qashqashaado dhismaha maamulka farmaajo ee uu doonayo inuu talada dalka ugu tago villa Soomaaliya waan arki doonaa saaxiibayaal dabcan kulamada hadda u socda farmaajo iyo sidoo kale shuute iyo odawaa iyo wixii ku soo kordha iyo doorka ay qaataan adiguse sidee u aragtaa kulanka hadda socda bal aragtidaada waxay noogu reebtaa qaybta commentiga qaybaheena kale ee wararkeena fahiimo quuje gabadhan waxay ka tirsan tahay xildhibaanada golaha wakiilada maamulka waqooyi bari tiro xildhibaano ah oo gaaraya 20 xubnood oo maamulka waqooyi bari ah ayaa casuumaad rasmi ah waxaa gaarsiiyey tiimka nabad iyo nolol ee farmaajo kaambeynkiisa gacanta ku haya dabcan ma garan kara sababta uu xilligan farmaajo aad ugu daneynayo maamulka waqooyi bari
ma wuxuu rabaa in uu dhaqo oo uu ka tirtiro waxyaaba hadalla hore uu soo kala gaaray dhinacyada farmaajo iyo sidoo kale Fahimo Quuje ma isqaadan karaan iyana waa door kale laakiin hadda waxaa la soo warinayaa xildhibaano uu ka mid yahay Kilwe Aadan iyo sidoo kale xildhibaano ay ka mid tahay Fahimo Quuje iyo ilaa 20 xubnood oo kale ayaa casuumaad rasmi ah loo diray isla markaana uu u diray madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khubarada iyo macluumaadku khubarada arrimaha la socoto waxay leeyihiin madaxweyne Farmaajo hadda wuxuu aad u daneynayaa in mar la arko maamulka waqooyi bari oo dhismay yacni aad buu u daneynayaa inuu ka qayb qaato dhismaha maamulka waqooyi bari waxaana dadka arrimaha la socda leeyihiin Farmaajo waa nin yaqaan sida wax loo gudo waa nin yaqaan sida boogahee dhacay iyo waxyaabihii la kala tirsanayay la dhaqo Fahimo Quuje haddii ay ku soo biirto tiimka nabad iyo nolol dad badan waxay aaminsan yihiin inay gabadhan galaangal ku leedahay baraha bulshada inay taqaano sida wax dadka looga soo dhiciyo inay taqaano shukaansiga siyaasadeed inay taqaano wax walba oo ku aadan yacni campaign-ka hadda kor waan ogeyn markii Cabdiqaadir Firdhiye uu loolanka kala kulmay Cabdirasaaq Khaliif iyo Jamaal iyo ragii kale ee la tartamayay oo Maxamed Yuusuf Guri uu ku jiray in Fahimo Quuje ay dhaxda u xiratay sidii ay xildhibaanada waqooyi bari u shukaamin lahayd oo oran lahayd waa inaan codkeena siinaa Cabdiqaadir Firdhiye ugu dambeyn Cabdiqaadir Firdhiye uu ku guuleystay sidaas lamida Fahimo Quuje waad ogeedeen dagaalkii lala galay Soomaaliland 2022 ilaa 2023 doorkii ay ciyaartay oo ku aadanaa arrimaha la xiriira in waqooyi bari ay noqoto maamul ka madax banaan gumaysiga Soomaaliland ugu dambeeyna taasi dabcan way rumowday marka dad badan waxay aaminsan yihiin Fahimo Quuje oo la casuumay iyo xildhibaanadan inay Farmaajo wax weyn u goyn karto tanina waxay noqonaysaa dhoolato siyaasadeed oo inaba aan caadi ahayn xildhibaanadii waan dhahay madaxdii la baxday samata bixinta iyo madaxdii la baxday mustaqbalka dhammaan waa ku fashilmeen ayaa la leeyahay in ay bal galaangal ku yeeshaan arrimaha gudaha laakiin Farmaajo albaabadiisa hadda waa ay furan yihiin cid albaabada laga celinayo ma jirto waxa sidoo kale soo warinaya inuu Farmaajo xataa casuumay madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Puntland si Muqdisho iyo maadaan laakiin khilaafka dawladda Soomaaliya oo weed inay aysan imaan karin isku soo wada duubo dad badan waxay leeyihiin Fahimo Quuje waxa ay campaign-ka Farmaajo ka noqon kartaa qayb muhiima waana xildhibaan ka tirsan dabcan golaha wakiilada laakiin xildhibaanku inuu door ku yeesho siyaasadaha iyo xaaladaha dalka ka jira ma jirto cid diideysa mana jirto cid oranaysa maxaad qayb uga noqotay oo dad badan waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha noocan oo kale ay noqon karaan waxyaabo yaryar oo la soo gabagabeyn karo oo 1 iyo 2 iyo 3 toona noqon doona waneegi doona saaxiibayaal bal halka uu ku bilowdo iyo halka uu ku dhamaado xiriirka Fahimo Quuje xildhibaanada hogaaminayso iyo Farmaajo adiguse ma aragtaa ama ma isleedahay Fahimo Quuje waxay qayb ka qaadan doontaa dhismaha maamulka Farmaajo oo uu doonayo inuu dib ugu laabto filla Soomaaliya aragtidaada waa inoo muhiim markana waxaan eegayaa xiisad culus oo u dhaxaysa ciidanka Somaliland iyo jabhadda beesha Ciise ayaa laga soo warinayaa galbeedka magaalada Saylac xiisadu maalmahan waa ay taagneed oo wax cusub maahan laakiin hadda waxaa la soo warinayaa in xiisadu gaartay meeshii ugu sareysay wararka iyo macluumaadkan helayna waxay tilmaamayaan in laga cabsi qabo inay dhinacyadu gooda isdaraan oo mar walba halkaas uu dagaal ka dhaco khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin madaxweynihii Somaliland Cabdiraxmaan Ciro dabcan isha ayuu ka daawanayaa waxa hadda socda oo wuxuu aaminsan yahay inay yihiin wax yar oo la xalin karo laakiin jabhadda Ciise oo hubeysan oo iyadoo ka caroosan hab dhaqanka madaxda Somaliland oo diiday in xeerkii Ciise lagu soo bandhigay Saylac ayaa la soo warinayay inay jabhado hubeysan oo dagaalami kara oo ciidanka Somaliland dili kara ay soo saareen waxaad ogeedeen hadda ka hor beesha Garxajis in jabhada gacan libaax ay koreen buurta gacan libaax kadibna askar ka tirsan Somaliland ay dileen markii hoosana soo loo dhaqay laakiin hadda xogta iyo macluumaadka la helayo waxa ay tilmaamaysaa in xiisada u dhaxaysa jabhadda Ciise iyo sidoo kale ciidanka militariga Somaliland ay faraha ka baxday waxa dhici kara ayaa la leeyahay wax kale oo aan la tusaaleysan karin hadaan si degdeg ah looga gaarin khubarada arrimaha la socoto waxay leeyihiin madaxweynaha madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waa uu ku fashilmay in uu beesha Ciise ku qanciyo in ay arrimahan si hoos loo xaliyo
iyada oo khubarada arrimahan la socotana ay leeyihiin dhowrkii saac la soo dhaafay si weyn ayaa loo dareemay dhaqdhaqaaqyada ay wado beesha ciise oo ku aadan jabhadaha ay doonayaan inay halkaasi ka dilaacaan kuwaasoo la sheegay inay xaaladda uga sii dari karaan islamarkaana xaaladda ay gaarsiin karaan meel aan waxba laga qaban karin. guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin.